wararka ka heleno deegaano hoostaga degmada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose ayaa waxay sheegayaan in halkaasi ay ka taagan tahay xiisad u dhaxaysa dadka deegaanka iyo dagaalamayaasha Al-Shabaab. xiisada ayaana salka ku haysa kadib markii ay isku fahmi waayeen dadka deegaanka lacagta ay Al-Shabaab ka qaadayaan xoolaha ka cabaya ceelasha biyaha ee ku yaala deegaanada hadda xiisada ay ka taagan tahay. deegaanada ay xiisada ka taagan tahay ayaa waxaa ka mid ah Yaaq Bishaari Kaamjaroon oo dhammaantood hoostaga degmada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose isla markaana ay maamulaan dagaalamayaasha Al-Shabaab. sidoo kale dadka deegaanka waxay sheegeen in ceel ku yaala deegaanka Yaaq Bishaar ay Al-Shabaab ku aaseen miinooyin. sidoo kale miinooyinka Al-Shabaab ay ku aaseen wadooyinka soo gala ceelka ayaa waxay la qaraxday ilaa iyo 2 neef oo geela halka uu dhaawac ka soo gaaray qof ka mid ah dadkii geela la socday. Al-Shabaab iyo dadka deegaanka ayaa waxay isku haystaan lacagaha laga qaadayo xoolaha ka cabaya ceelasha biyaha isla markaana Al-Shabaab ay ku kordhiyeen lacagta dadka deegaanka. Al-Shabaab ayaa waxay neefka geela ka qaadayaan lacag dhan $4 halka neefka lo'dan ay ka qaadayaan lacag dhan $2 sidoo kalena neefka ariga ay ka qaadayaan lacag dhan $1 kadibna dadka deegaanka ay arintaasi si kul uga hor imaadeen. dadka deegaanka ayaa cabsi badan ka soo wajahday dagaalamayaasha Al-Shabaab isla markaana ka muujiyay cabsidaasi in wadooyinka ay isticmaalayaan xoolaha ay ku aasayaan dagaalamayaasha Al-Shabaab miinooyin. waxaa inta badan cabasho ay ka muujiyaan dadka reemiga lacagaha ay ka qaadayaan dagaalamayaasha Al-Shabaab oo aan xad lahayn.